waxbarashadu waa asaaska nolosha. halkani waa dugsiga hoose ee deegaanka Booramo oo ka tirsan gobolka Togdheer. waxa uu ka kooban yahay 2 fasal waxaana ka muuqata duruuf adag iyo xaalad aan laga filayn. labadani galaas ayaa waxa ku dhigta arday gaaraysa 40 arday oo kala ah fasalada koobaad, labaad, saddexaad iyo afraad. waxa intaasiba wuxuu dhiga hal macallin oo kaliya, sidoo kale 3 fasal oo kamid ah waa isku goob, halka fasalka koobaadna uu yahay kan idin muuqda. ardaydu waxay ku fadhiyaan dhulka umana ee ka meel waxbarasho. sidoo kale waxaa dhinac yaala agabkii ofiska iskuulka. duruuftani waxbarasho ee ku xeeran dugsigan uma saamaxayso inuu sii jiro, wuxuuna si degdeg ah ugu baahan yahay dhismaha ofis cusub, macallimiinta oo la kordhiyo iyo fasallo cusub oo la dhiso. halka haatan idin muuqata waa halkii lagu talagalay in laga dhiso ofiska. maamulaha xaruntani ahna macalinka kaliya wax ka bara ayaa noo sheegay in goobtani ayagu dhagax dhigeen, balse ay weli ka sugayaan inay wasaaraddu dhisto. halkani waxa weeye halkii ofiska loogu talagalay. wasaaradda waxay nagu xoojistay waxa seestaan ofiska inta seesta hadda deegaanka tiin inta seesta labada fasal anaga idin dhisayna intaana anaga idin dhameystirayna waanu seesnay deegaan ahaan. marka jaajuurkii macallaan u diyaarinay markii aanu isla weynay qalabkii jingadii iyo qorigii waxay noqotay iskuulkan tuulada Booraamood ana maamula ka iskuulkan ana ka macallin. marka arday fara badan oo konton ku dhow ilaa 48 arday ayaa galaaskan iskuulkan dhigata oo u qaybsan uulo koobaad, fasalka koobaad, fasalka labaad, ka saddexaad iyo ka afraad baa ugu sareeya.